ما أنت وقت كلا برامج كلا برامج كلا أدو حيس بدن كذا الآخر دواء وهو يعني وقت ورئيس وكيد بيس هاي إن شاء الله بإذن الله الكريم واحد دبل شدي إن شاء الله هين وبنو برامج التاريخ وقلا كيد وقلا تيلاش هذا به يلا يلا بإذن الله الكريم هاي يكفي إيدان إن شاء الله درج مجاهدين تيها ترك خوبان أيام مكرون تدي أدم كتير شوقي وصاوي أنت حسنا هذا تاريخ لقيه هاي تدل يلا ده مكرم ما يسوى وصا ها ما يلوين طارق وين كريبنا ها وحي ثالك إن أنت إلهينا لقبته ها وين طوبينا وين إسكشان ديننا وايكا يا ها سحن وهفن ينو قواننا إن شاء الله بإذن الله أنت كرامك إلهي كرسيه إن شاء الله ما هو يعني هذه أنت سنو مهم تهاي صوت هو يعني هاد يشير هديان dadka la baraarujin lagu wacyigelin maxaan ku idhaahdaa insha Allah kulli hotel Mansoor magaalada Hargeysa baynu insha Allah halqadaheena ku bilaabanaa إن شاء الله wana hodeel barakaysan oo runtii nin weyn oo mujaahido isaguna Abdulqaadir Xaash هاي oo kulli odayaashii odayaashii waaweynaa waaweynaa halkan bilaabay buu ahaa bilaabay buu ka mid ahaa hoteelkiisi Mansoor si gaar ah leenahay Abdulqaadir Xaashi بإذن الله الكريم فاتحة الله مرة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين runtii dadka ahlu karamka ahaa iyo dadka mujaahidiinta aynu doonayno in u ducayno taariikhda lahaaba ka mid ahaa mujaahid Axmed Aakhiro halkaan ka qaban doonaa maanta waxaanu bilaabi doonaa halqadihii taxanaha ahaa ee taariikhiga ahaa ee halganka بإذن الله الكريم si bulshadeenu بإذن الله الكريم ay dee taariikhdaasi ula socoto إن شاء الله ayna u gunudo soo fadhiiso mujaahid وهجاج السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن أو ونعكسن ميل كستو أدقى دعوانا سان كسود وهذا برامجيوها بوريسية حنا أو أنو لا يلان دونه هدول هاي لحظة مجاهد أحمد محمد شلع وكم مقع دير مجاهد آخره وحكمدها هالجمياشي مجاهدين تي جبهتي حق ضرر كهاي أسنا مجاهد كهونتي وقت فربضان أيو dadkan iyo dadkanba u soo huray naftiisa waa dadka kooban ee ka sii nool mujaahidiintii farakutiriska ahayd ee taariikhda faca weyn ku lahayd mujaahidiintii SNM waxaanu jecelahay halqada koobaad yaanu halkan hotel Mansoor ee magaalada Hargeysa ku bilowno mujaahid soo dhawo marka hore mujaahidku iyagu isagu wada ka horeeyay SNM jabhadihii afraad buu ahaa inta aan aasin ba jabhadii SNM iyagu marka horeba sii baxay marka bal waxaan jecelahay faallada halka idin ka hor dhici maaye mujaahidkan marka hore iskiin baraya ku soo dhawow mujaahid Axmed Aakhiro bal insha Allah ta'ala barnaamijyada taxanaha ayaan ku bilaabi doonaa bal yaraantaadii halka ku barbaartay sida kuugu dhashay dareenka marka horeba inaad noqotid askari aad noqotid ciidamada ku biirtid halkaad wax ka bilowdeen xilliga aad bilowdeen idiya daawadayaashadii kala baxo بسم الله الرحمن الرحيم علي صحفي ما صدتي aad ma mahadsan adiga iyo bahada TV-ga aad baan idin salaamaya dhammaan ummadda reer Soomaaliya oo dhan waan salaamaya gaar ahaan waxaan sii salaamaya mujaahidiintii halganka nalag aan wada galay waxay nool waxay dhintayna waanu tacsiyadeynaya ilaahay inuu jannada firdawsa geeyo xaasaskoodiina waan u ducaynayaa iyo ubadkii ay ka tageen insha Allah billaah kariim inuu ilaahay iyagana farash fiican u furo iyaga wixii nool iyo naafadaba waxaan kale salaamayaa oo ka faa'iideysanaya maanta halgankiinu bilownay murigiisii maanta waa la guranayaa waa taa ilaahay اعتراف كده وكان نوجيمد وين هذا الحمد لله
aad iyo aad baan anigu ahmiyad gaara ayuu ayaa aniga ii leedahay maanta wacaynka anigoo caafimaad qaba oo nool halgankii aanu bilownay 79 dabayaaqadiisii 1979 dabayaaqadiisii kii aanu bilownay maanta waanu soo gaadhay tio ictiraaf 2026 alxamdulilah aad baa ilaahay baana mahad leh mahadda koowaad allah ilaahay baa iskale talabaad waxaa le nimankii dadkii keenay waxan daaraha cadcad iyo ubaxa iyo magaalada wada fooqa iyo waxaasi dambe dhistaadeen haddaan rag u kicin hargeysa waad ogeydo calow adigu damalaha maad soo gaadhin wax fooqa looma ogolayn in laga dhiso magaalo kale korodha hadalkeeda midaaya fooq in laga dhiso lagama ogolayn marka ilaahay baan ugu mahadinaynaa alxamdulilah waxaan salaamayaa oo kale dadku markaad tiraahid fooq lagama ogolayn horumar baan la ogolayn baa markiiba maskaxda dadka kusoo dhacasee sababtu maxay ahayd waxa weeyaan lama ogolayna fooq laga dhiso sababtoo dadka halkan degan wada lacag bay ahay waxa ilaa xamar baa laga dhisaya wixii fooqa halkan lagama ogolayn fooq kolkaa horumarkaa loo diidanaa ya oo waa tii la yidhi gaari langurusala lama soo degi karo ya gaari langurusala nin soo degi karaa ma jiro xamar ma lagala soo degi karaa kii loo soo degana waa laga qaadi jiray kolkaa ilaahay baa mahaddaale ina ilaahay loogu mahadnaqo weeye waxaa kale salaamaya caruurtayda iyo xaaskayga waxaan leeyahay midhaha maanta aad guranaysaan rag baa u dhintay aabbo u soo halgamay ya midhaheedii baad guranaysaan maanta ku xamdiya alxamdulilah baan taaganay cali haddaan dib u yar noqdo anigu waxaan ku dhashay miyi baan ku dhashay waxaan ku dhashay meel xarshin agteeda la yidhaha Jenifa oo markii hore waa halkii qaxoontigii ugu horreysay la tegey shakaal goobaa loo jiray markii hore laakiin markii qaxootiga la geeyay Jenifa loo bixiyay halkaasaan ku dhashay magaalada waxaan soo galay 76 waan iska xoogsan jiray ciyaal baan ahaa anoo iska xoogsado ciyaal baan ahaa markaa oo dee aan ciyaal yar baan ahaa waxaan markaa 16 jir baan markaa soo galay magaalada waxay ugu dhacday markaa dagaalkii 77 ka bilaabmay raaf baa ka bilaabmay Hargeysa waa la iga raafay Hargeysa dhexdeeda la iga raafay halka la yiraahdo Judiyuda anoo taagan oo daawanayna basaska ayaa umaleegu tuuray madheera lagu tababaray qasab wala noo xiiray madheera lagu tuuray qori baa lagu ilaalinay ilaa tabarkii noo dhamaaday qori baa lagu ilaalinay Hargeysa toos loo dhaafiyay tababarkaasi intee la gudii socday ilaa 6 bilood baa loo socday oo madheera waxa la nageeyay halkaan la mariyay waxa la nageeyay meel la yiraahdo jiri meel la nageeyay lagu qaybiyay horreeyay saylac baa la geeyay saylac baan soo dabeetana intii dagaalkii dhamaanayay ilaa laga soo baxay saylac baan joognay qolkii dagaalkii laga soo baxay yar ka baxsaday markaa asirti 78 dabayaaqadiisii ayaa ka soo baxsaday Hargeysa iska yimid xogay baan joogay 79 dabayaaqadiisii ayaan tagay jabadii loo jiray afraad hadda dadka xog ka siisay maxay ahayd afraad waxay ahayd jabada waxa ka jiri jiray Itoobiya la dagaalami jiray loo jiray Soomaali galbeed afraad guuta afraad loo jiray baa jirtay afraad baa markaa qolkii laga soo baxay wadankii jabadii ogaadeykii baa wadan dadkii aad u dhibtay aad khalkhalis aad u laysay oo kufsatay wax walba ku samaysay dabeetana Allah u naxariistay Maxamed Cali loo jiray Maxamed Cali oo guutada markaa afraad haysan jiray ayaa la qabto waa la xiray hadana waa la soo daayay dabeetana wuxuu sameeyay Soomaali galbeed ka sii galbeed ayuu ku dhawaaqay waxa sameeyay Maxamed Cali Soomaali galbeed ka sii galbeed Maxamed Cali markaa wuxuu haysteen kolka hore waxa haystay jabada afraad buu madax u ahaa ayuu ahaa kolka waa la xiray kolkii la xiray la soo daayay ayuu jabada aasaasay hadana isaga maxaa loo xiray waxa loo xiray amarkii la siiyay ayuu diiday faqash dawladii siyaad bari
ayuu diiday oo sidii ay jabaddu wax u waday ayuu u wadi kari waayey hay dadkay dhacayeen way boobayeen way dilayeen war ka daaya bulaa dadka kolkaa waxa macal lagu jiray oromo hay kolkii kala baxay kolkaa la kala baxay markaanu lamaan joogin laakiin tii waxay Soomaali galbeed ka sii galbeed oromo ku jirtay gadabuursa ku jiray ciisa ku jiray cid walba way ku jirtay isaaqu ku yaraa isaaqu kale ku yaraa waxa kaliya ku badnaa reer kale ilaa Jibriil korka oo deegaankiisa markaa isagana deegaanka deegaan oo aad dadka loo dhibay ayaa ku badnaa kolkaa taasaa la aasaasay kolkii la aasaasay Soomaali galbeed ka sii galbeed ayaa la yidhi jabaduha soo hooydaan ha xaroodaan oo meel burduleelaba la geeyey oo ku taala Gibili hoosteeda hubkii halkaa lagaga xareeyey kolkii hubka halkaa lagaga xareeyey ayaa nimankii madaxda u ahaa markaasoo ay ku jiraan dhuxul iyo nin Cabdikariin la odhan jiray iyo rag badan oo noocaasa ayaa la qabtoo la xidhay dabeetana ciidankii baa soo bareeyey hubkii ay la baxeen rag bay qaar jabadii kala ka mid oo Axmed Gureydii ay laayeen way soo baxeen kolkii wanayaan geed balaad ayuu salxaan loo jiray jaranka ayaa u yimid kaasaa soo celiyey kolba si loo celceliyay haddana waa hubkii laga xareeyey in badan baa la qabtay waxa la geeyey koonfur tiyo wax yaroo ilaa 150 joogaan baa loogu yimid anigu 79 dabayaaqadiisii Qobarash baa leedahay oo ku taala Gibili wajaale dusheeda dhinaca Itoobiya waa xagga Itoobiya markaa waxaan la dagaalanay kolkaan u yimid ciidankii Itoobiyaanka rag badan baanu ka laynay asaa waxooga yar rasaas iyo huba kolkaan iyagii la dagaalanay Itoobiyaankii la dagaalan ayaa waxooga qoriyaay loo keenay yar rasaas oo leeyahay qoladan abade waxooga u shawdee hala caawiyo annagu halkii qorash iska degan oo iska fiican ayuu Axmed Guri noo soo duushay oo tii nimankan jaadka meesha ku cashuurtay lacagta cashaadka iyo waxa qaata mid ka qaadaan ka bacdi waxaanu Qobarash bay noo soo dul degeen waxay nagu yiraahdeen aynu cashuurna jaadka iyo xoolaha iyo dhuxush iyo waxaanu aynu baga ku shubano hubana soo iibsano waxaanu ku balwaayay berri noo kaalaya berri bay noo yimid 3 nin bay noo soo direen 3 nin kolkaa asaan ku waa dhageysta xoola jaadka ana kaale oo ana kaale xoolaha dhuxushiyad waxa dhulkana anaka dambaamnaynta ilaahay ka sokaysa dabeetana waa kuwa kacay kacista kaceen baanu qabanay 3 qori bay sidroon ka qaaday dhulkaanu la dhacnay wiilay faqashtu dayday jirtay oo gacan abaskuul loo oran jiray ayaa ku jiray nimanka wajaalaanu geedo waa la xidho weerar bay maalinta banagu soo qaadeen way naga xoog bateen way naga qabsadeen meeshii waxba nagamay dhiman weergad bahad la yiraahdo magaalada wajaale ka xigta galbeed ayaanu tagnay u guuray jaadliin xagaa soo maraan ku nidhi gadabka galbeedkiisa waqooyigiisa way soo mareen maalintii dambe maalin labaadii ay hadda halkii dhow degeen wadadii naga jareen dabeetana waxaanu samaynay qolyo ka tirino kaliya unahay waxaanu meesha aan baynu ku dhimanno ma nimanka aynu ka marka ilaa waqtigaa Soomaali galbeed bati Soomaali galbeed baa ka sii galbeed baa kasi galbeed bati ka sii galbeed baa marka waxaan naag degan ciidan horiyaal ilaa Ciisaay Agadbuusiya iyo mid ceel tira ilaa Ciisaa naag degan laakiin nimankan lama dagaalamayaan iyagu idinku maydiso anaga way taageersan laakiin lama dagaalamayaan kulkii waa gubriya wana iyagoo halkii toban oo halkii wadadii soo mareysay dabeetana aanu ku bilownay si uu soconay baan ku bilownay wadada dagaalamayaan ismay lahayn waa ilaa dhowr kulan anigu boqolyo ka tan niman ilaahay baan la qabto waan jabinay markiiba laba unug baan labada koona u kala dirnay bari iyo galbeed waqooyi iyo koonfur
kolkii ay nagu soo kaceen baan labada dhanka gala waan isku hagaajinay هي gadabkaanu ku hagaajinay هي Ethiopiankina hoobiyu ku soo garaacay هي wac dhaga toos baan nin baa naga dhintay afarna way naga dhaawantay dhaawacii baanu qaaday gabili baanu geynay كم مقعي سمعت ستة ninka naga dhintay Ibrahim Dhuub baa loodhanayay براندو Ibrahim Dhuub baa loodhanayay Allah u naxariistay gabili baanu geynay dhaawacii intaanaan gabili geeyo waxaanu xadka marayno iyagoo ciidankii Soomaaliya difaac ku jiraan u soo galay sida waryaal dagaalatay saan ku niri cid la dagaalamay maxay ka galayday wata xabadiyo tawraad dagaalatay galaysa tahalgaas iyo qoriiba la degno bal iska socday ilaa dhaawac baanu sidanaay gabili baanu geynay dhaawaciyo saddex gaari oo dhowr baabuur tiyaalo soo direen jaadeer ugu qaadnay gabili baanu geynay dhakhtarkii hore galay dadkii waxay nagu yiraahdeen waryaare ma Ethiopiakiiba amharada islaysan mise kuwii asanu kuwii wuxuu qeyraysan aad bay qeyraysan waa lagu dhibay meesha qoladan galbeedkuna dadka la mid ma ahayn saaqa kale iyo dadkan kale wadanka jooga halganku iyagu ku soo horeeyay waxaan oran jireen wax walba way dhalada daba socon jireen nimanka uun مالك قاعد nimanka meel kaga soo hara هي ayay nagu oran jireen هي ilaahayna wuu nala qabto waan uu nagu asturay هي kolkii saa dagaalku u dhacay hubkoodii istoodhadoodii meesha yaalay miinadii iyo rasaastii ما قاعدتين isla markiiba shacibka noo guray labada taaban la kuday هي shacibku ma gacan saaray istoodhadii jabiyay yaa soo guray noo soo nasiiyay والك قنيمة كاش يعني qadiiman ka helay kolkaan laba saddex shan joognaa jabada soo yeeto هي aad tagto gudaha soo gasho marka anigu waan guuray geed balaar baan tagnay qoladii kale way soo hoyan weyday amarkii bay diiday haddana waxaa lagu niri guura waxaan tagnaa Boodley waa meel gabili u dhaxaysa alle badayo ya way tii baan tagnay iyagii way ma soo hoyan waan iyagii ciida baa lagu dalbaday markaa هي waxa la wixii beebe joogay area-da yaa lagu dalbaday fitir faatir baa loo kala هي wax la qabto wax carara wax la dila yaa هي maalinta ugu dambeysay wajaale هي yaa هي halkaa markay marayso anigu halkayga waan iska teganay kuwii saan baan u baxnay dabeetana maalin waxaanu tagnay saadhow doobaan xaggaa iyo meel siyaarada la yidhaha iyo durye eriyadeeda iyo ayaanu tagnay saankii faqashta yaanu halkaas yaanu ugu tagnay meel yaro siyaarada ilaa jooga kamabaanane rasaas baan dabada u qabanay nimankaa dambeeshooda وضعك بلوده aan ku bilownay qori beekeema ها mid qori beekeema sitaa ما حد يجا أقول بلعبة اللي ويدي كده دقني ma kala jeclin ba هي ya ma kala jeclin هي anaga qeyro kale nagu jirto ها inay kuwan iyo kuwan kale kuwan isku mid yihiin يدي أمسنتي ayaanu وأنا سده هي ayaanu aaminsanay qorigii bardaloolkaan waan ka qaba qaadan ya هي dabeetana halkayga waan soo gudno nin busbaar oran jiro ciidankaa alle bada haysan jiray ururkaa saanka haysan jiray ayaa beebeeyaa nagu soo istaaray ya marka sanadkuna waa haween 9 sagaaliyo todobaatanka dabayaaqadiisii wey ya beebeeyo laba iyo gaadh nagaga qabto difaac baanu gallo kolku wasiire khasaara ka dhalan ayaa malaa iyo meel kale amar laga siiyey mooyaan ayuu naga tegey halkaa markay marayso ayaa anugu ka tegey markaa jabhadii maxaa laga tagay hargeysaan tegey marka miyaad fasax mise waxaad wadaha iska yar fasaxun baan ku tegey hay dabeetana fasaxina weyla yar rooday hargeysaan tegey waxaa dhacay waxaan ka maqlaa markaa sanad dhagax tuurkii hargeysa 82 February soo ma ahayn soo ma ahayn berigaa ayaa dhagax tuurkii lagu qabtay
gol waraabaa lagu xidhay gol waraaba markii lagu xidhay 13 ayaan xidhnay ayaa lana soo daayay nin Cabdalla Gusweyne loo jiray Cabdalla ayaa haysan jiray gobolka dabeetana wuxuu nagu yiri kii qurub soo tagayona u tag kii dalkiisa difaacanayona difaaco من سيدنا ملاي دور ku baanay oo farb waxaan u baday waliba daanta galbe daanta waqooyiga xusada u lahaa marka wuxuu war daayay aan bedelkiina difaacda kii dafkiisa difaaco kii qurbisu togeeraada ku taala qurbisu wuxuu u jeedaa asana marka asana ma qurbisu kala yaqaan marka asana ma aqoon magacan qurbisu ka horeeyay SSDF qurbisu loo jiray يا استرفتي ويا دايده hubaysan ayaa meesha joogtay tabeetana wax yar markaan joogay ayuu hadana raaf bilaamay ya raaf dadka la raafayo askareenayo ayaa bilaamay kolkii uu kaasi bilaamay baan aad garatay daan lagu soo socdo hay ma ka dhaqaaji hay harshibad waxa ugu tagay Allah naxariistay Axmed Dagax iyo Maxamed Kaahin iyo Aadan Saleemaan iyo saraakiil kale iyagoo hoose ayaa xashin ugu tagtay iyo ciidankeygii bar ka mid ah xariisii jooga iyo Maxamed Cali hay yaan ugu tagay halkii ma jabay taga saraakiisha xashin ugu tagtay marka meel bid deganaan xira amiya si bal sawir ka bixi xashin sawir xarawe ma jir hay حربة ما يشرين قرية ضدك أي دقناي يوم بدي ولا بس كسحني يا برضه بقى واحد لوك يعني وحقي راين فاشلو يلا لوك يعني تبى تنا ميل سكول كي مقالة ده أي توبيك يلا نسي سكول كسر فاشي كي دقنا أنا كو يعني هذا إلى اللي بعتني يلا كار دقنا يلا كسر كليني واحد عالم تبى تنا مالين لوقت بدي wuxuu dhagu yiri Soomaaliya television kuma jirno haayo xogeeyada qoriyaha yararo aan dhalaabiyana wala nasiye iyo xogeeyada sabana wax soo isbaliidin sanadka inta dhamaanin dalkii aan xoreyno sarkuna ha ilaahay wax ka bareeya 8 sano ugu yaraan inaan dalka xoreyn ay nagu qaaday 8 sano معجزة هذا المعجزة أصلاً فني إيطاليا محصلنا ولاده بس هو دقيسته إنه ما يربطين واحد ما كرساني كوري وين تقالنا وين لبدي لا يعني لبضل لنا ولا عليه يا وين ما دفقش نقطة منها يعني أصلاً من نقطة سكسور تيسته وأنا في عنا ذوه نحن النقطة كل شيء في على فقش تكاجل زونا طبعا أنا هادو تذكر كلامه هل كان يسوي سيد اللي دونا يا شبدو وين سيد الشاه هل كان يسوي سيد الشاه كي حواس صارنا هذين يستلي وينه هادو ولكن بقدر كقبصنا يستلينا وتقال لحظة لك بالعامة يا هي تبعت أنا وصان كنا تاس ما يدعك الثابة أو بدعك الثاس هي أعرفهم كويس إني محمد علي عد كلام يقود بضيس محمد علي أمريكا نوقد بري سراكيش اللي السلام اللي بقول بطاطر محمد علي بالله يقاني يتوبياك ويا غادب يبي السبب بطاطر محمد علي أيوتك ويا غادب أي نوي قرني halka markay marayso ayaa waxa la loo keenay qoriyo badan baa la keenay Itoobiyaanku noo keeneen baysaskii baa loo qaybiyay xarshin duriya gaashaamo baalade dibiile dabaylka yaa loo qaybiyay marka anu waxaan raacay Xasan Ciise Jaamac Dayib Guri nin loo jeedo noordiin rag noocaasa annagoo imika waxa ka sii noolaan garanayaa raggii kale xasan genin la yidhaahdo xasan maxaad oo wax la yidhaahdo oo araba
iyo nin la yidhaha uu joogay imika uu joogaa nolol baan ku ogayaa waa xanuunsanaya iyo nin la yidhaha cabdi bidaar labadaas iyo nin la yidhaha mahdi dhagoole jooragaanu ku dhaalisi jirnay saddexdaasaan ka garanaya kasii joogaan raacnay boqolyo konton qori baanu qaadanay laaqeyrtaan la tagnay markaa istooriyadii etoobiyaankaan u dhiganay marka etoobiyaanka halkan xerada halkan nala seex halkan soo galay yidhahdeen waanu diidnay magaalada lagu galnay markaa laaqeyrta guri xasan ciise jaamac hooyadii leedahay ayaanu laaqeyrta ku yaala ayaanu degnay etoobiyaanku halkaas nagu ilaali jiray habeenkii gaadhka naga qaban jiray neeftana waxaa joogtaa magaalada xerada ayay degantay etoobiyaanka dhex degantay marka anagu waanu diidnay inaan la degno dahagunan gudaha iyaga badda in la degno anagu dadka iyaasoo dhex deganaanaya baanu ku nin sidii baanu ku dhex deganay neefta 6 galabnimo ayaa la xarayn jiray iyo xaroo jireen laguma arki jirin meesha annaguna saasaa isku dhex joogi jirnay waata halka markaa dadkaad ku urursan jirteen hubkana waad sii jirteen khaasatan dhalinyarada hadday ururin jirteen dhalinyarada nu ururin jirnay halkaasaanu ciidan badan ku helnay marka waa 82kii hawshii u horeysaanu galnay waxaan u baxnay bari idinkoo ka tegay laaqeyrta durya ciidan baa laga soo qaaday dibiile baa laga soo qaaday xarshin baa laga soo qaaday laaqeyrta inoogu yimaadeen waxa la wixii sargaal soo baxay oo joogay markaa laaqeyrta isku yimaadeen intaynan bari ka bixin maxaad iyaad ka xusuusataa hadday noqoto saraakiishii hadday noqoto raggii khatarta ahaa inkastoo hadday kala horta la wada tirin kari maayo laakiin raggii saraakiisha ahaa waxaa dee maxamed kaahin aadan saleebaan xasan saleebaan axmed dhagax aadan shiine ninka dayib gurey ya xasan ciise jaamac siyaasiyiintu way fara badnaayeen dad tiraba meel hayn laaqeyrta inoogu yimaadeen waanu ka baxnay 2 gaari baan markaa laaqeyrta dadkan jabhadan durye laga soo qaaday iyo inta kale agag kale laga soo qaaday tiradooda intee 2 gaari oo adigu buuxa 2 gaari oo siisayaala oo mid iska rogay yahay dhigaleeyay 2 gaari oo siisayaala ayaan aduu kale horta 100 maanaan ka badnayn 100 askari boqol macal saraakiishiyada ومع saraakiisha la isku geeyo tira meedan badnayn labada gaari baan wadanaa laaqeyrta isku timaada laaqeyrta isku raacnay intaydan bari u bixin halkaa dhalinyaradii dee qaarna kulli waqtigaadii waa dhinteen baa laga yaabaa qaarna dee mujaahidiin kale waaweyn bay noqdeen iyaad kasii xusuusataa aan saraakiisha ahayn ku jira waqtiga kulle imika wax jooga oo nool xasan gelay iyo ninkaan ku leeyahay xasan bidaar yaa saddexdaa nin baan imanka ayaan ka garanaya oo nool nolol ku ogahay xalay ragga dhintaad xusuusatid kuwaasi tiraba male kuwaasi tiraba male de raggan maca saraakiisha meesha maraysay de maxaa ka jooga de waxaa ka jooga maxamed kaahin iyo maxamed kaahin waa ka garanaya imanka wax ka joogaba يا حسن سجع يا حسن عيسى جع وقت قاسي اسلامنا لو ما دواقول ما هو اسلام لو دواقay markaas lagu dhawaaqay والله lagu dhawaaqay koor baa lagu dhawaaqay laakiin tii ma hirgelin magaciisa magacu baa waa dhawaaqtaan kaliya waayahay hadaba bari markaad u baxdeen mujaahid halka inoogu yarahay daawadeen aad bay mahadsantahay waxaan jecelahay halqaduhu way badnaanayaan in ay kulba halqad u gudubno biidni ilaahi kariim qaybta labaad baynu halkaa kasii qaadi doonaa hadduu la yidhaahdo oo mujaahidku inooga sii bilaabi doonaa ciidamadii oo laisku keenay laaqeyrta 100 askari macal jabhadoodii bari baad u baxdeen sheekadu halkaa bari baynu ka bilaabi doonaa qaybta labaad waxaan jecelahay in aad barnaamijyadani ay noo noqon doonaan biidni illaahi kariim barnaamijyo taxano ah oo taariikhi ah oo dhaxalgal u noqda guud ahaanba ummaddeena somalilan yar iyo weyn dadka taariikhda hore u maqlay kuwa aan maqal kuwa soo socda ay ogaadaan waddankan somalilan nafurkii iyo runtii dadaalkii iyo kartidii loo soo bixiyey iyo malaayiin dollar ama malaayiin hanti ah malaayiin naf in loo soo bixiyey jabhaddana loo duceeyey had iyo jeer dadkii halganka xalaasha ah soo galay
وإنه يقيب تلبعض